gudoomiyaha ururka galmudug ee Vilan Cabdullaahi Cadceed ayaa qalab sports ku wareejiyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug Mudane Xasan Axmed Shire. ciyaartoyda galmudug ayaa wali ku jira isku diyaarinta koobka xiisaha badan ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasoo bartamaha bishan lagu qaban doono caasimadda Soomaaliya Muqdisho. gudoomiyaha ururka galmudug ee Vilan Mudane Cadceed ayaa garoonka ugu weyn ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb kula hadlay Astaan Sports wuxuuna aad u bogaadiyay dadaalka ay wadaan xiriirka kubadda cagta galmudug macallimiinta iyo sidoo kale ciyaartoyda. anigoo ah Cabdullaahi Cadceed Roble waxaan ka imaaday wadanka Finland waxaan ahay gudoomiyaha ururka galmudug ee Finland waxaan qalab sports ku wareejinaynaa oo maanta aan joognaa magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha kubadda cagta ee xiriirka kubadda cagta ee galmudug Mudane Xasan waxaan leenahay Mudane Xasan naga gudoom qalabkan sportska aan ugu talagalnay kooxda kubadda cagta ee galmudug naga gudoomiye waxaan isku soo xilqabnay maadaama aanu nahay dad reer galmudug oo diaspora ah oo qurbo joog ah annaga inta tabarteena ah inaan soo gaarsiino dhalinyarada xulka kubadda cagta ee galmudug inaan soo gaarsiino inta aan awoodnay waan soo gaarsiinay waxaan rajaynaynaa wax ka badan inaan soo gaarsiino hadduu Ilaahay yiraahdo urur aniga aan gudoomiye u ahay ayaa waxa ugu soo talagalay qalab sports oo inta hadda ay u baahan yihiin oo baahidooda ah marka in la gudoomiyahana waa naga gudoomay aad u mahadsan. dhanka kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug ayaa la wareegay qalabka sportiga waxaana uu kaga mahadceliyay dhiirigelinta iyo haldanka ay ugu jiraan jaaliyada ciyaaraha Finland in ay horumariyaan dhalinyarada matalaysa galmudug sanad ciyaareedkan. galmudug guud ahaan bahda sportiga galmudug runtii waa ka gudoomiye adinkii teamkiina Finland waana maasantiin xiriirka markasta ay ku taageertaan bahda sportigana waan ka mahadcelinaynaa halkaas ka sii wadaan leenahay baahida galmudug sportigeedu inta ka badan ma kaafiso laakiin waa un qayb kamid ah baahidaha jira runtii waan ka mahadcelinaynaa garashadiina iyo shaqaankiina jaaladaha kale ee ku dhaqan dibadaha ee galmudug ka soo jeedana waxaan ka codsanaynaa inay ku daydaan reer Finland oo ay sida u garteen reer Finland ay u gartaan inay taageeraan guud ahaan sportiga galmudug runtii aad aan qanacsanahay faalaha bilowday gudoomiye waa maasantiin adiga teamkaaga waa inay mahadcelin la maasanta. si kastaba xulka kubadda cagta galmudug ayaa sanadkan ka mid ah 5 maamul goboleed oo ka qayb galaya tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir xilli labadii tartan ee ugu dambeysay ku harayeen marxaladda heerka gruubka. Najiib Cabdulqaadir Xuseen, Astaan Sports, garoonka Dhuusamareeb.